waa mid ka mid ah majaajilaystayaasha ugu caansan gudaha dalka Nigeria iyo qaaradda Afrika iyo dhammaan dunida dacaladeedaba. magaciisa dhabtay waa Siphon Okai. Soomaalidu waxay ula magac baxday isku days. wuxuu u dhashay dalka Nigeria wuxuuna bilaabay xirfadiisa jilaannimo sanadu markay ahayd 2007. isku days garabka muu helin dhammaan asxaabtiisa iyo faamilkiisa inay ka caawiyaan xirfadiisa jilaannimo kadib markuu u sheegay inuu noqon doono majaajilayste aad weyn. aad ayay ugu qosleen asxaabtiisa iyo faamilkiisuba, laakiin isku days ismuu dhiibin kamuuna niyad jabin inuu ka dhabeeyo hamigii ka dhex guuxayay ee ahaa inuu noqdo majaajilayste caan ah. maalin uun sanadii 2014 isku days muuqaaladiisu waxay ahaayeen qaar qaraxa oo viral noqda, waxaana daawan jiray dad kor u dhaafaya 200 milyan. maanta isku days wuxuu ka mid yahay dadka ugu caansan dalka Nigeria iyo dhammaan qaaradda Afrika. lacagta uu haystaana waxay kor u dhaafaysaa 2 milyan. haddaba isku days diinta uu haystaa waa diinta Kristanka. haddaba daawade, adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo ninkan hadaladiisii maxaad ka xasuusataa? kommentiga hoose iigu sheeg. hana iloobin inaad like saarto muuqaalkan, sidoo kalena aad nagula saaxiibto barteena TikTok iyo barteena YouTube.